faatimatu badcatun minii, faaduma waa gabal iga mida buu nabigu sal alay slam. wixii xumaynaya waa i xumaynaya, sooma, wixii xumaynaya waa wixii xumaynaya waa i xumaynaya, wixii dhibayana waa i dhibaya nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. marka gabdhaha waa karaameeyey, diintu waa karaamaysay, dulligiibay ka qaaday, dulmigiibay ka qaaday, xumaantii iyo jaahiliyadiibay ka qaaday, darajo sarena waa geysay, xataa wiilasha meelaan la geynin baa la geeyey. waxaa xaq loo siiyey markay guursanayso, ninka ay guursanayso ee nolosha la wadaagaya, xaq waxaa loo siiyey inaan lagu qasbi karin. gabdhaha qasbina, hadday yar tahayna idan weydiiya, hadday weyn tahay oo muxuu ahaayey nin hore ay soo martayna amar weydiiya. saas daraaddeed baa nabiga waxaa sugan sal alla alay wasalam intuu gabadh aabaheed guuriyey isagoon kala tashanin oon talagelinin ay nabiga u timi sal alla alay wasalam, wuxuu yihi khiyaar baad leedahay, xor baad, ama aabbaha yeel ama haddaad doonto waad diidi kartaa. wax la yidhaahdo xoog qasab ku yeel ma jirto. sax, waalidku inuu tala ku yeesho oo amarkiisa ay ka dambayso waa loo baahanya, laakiin cidda nolosha la wadaagaysa ee guursanaysa waa inaydu xaq u yeelato doorashadiisa. meeshaas wax badan baa inaga si inaga ah, sooma, badan baa si inaga ah. odayaasha iyo muxuu ahay waalidiinta iyo awliyaa-ul umuurka iyo gabdhaha waa la qasbi, kadibna markii la qasbo silic bay ku noolaan, ilaa wixii muxuu ahaayey yani waxa wey qanaaco iyo rido mayna ku gelin guriga. marka shareecadu waa diiday, waxaa la leeyahay gabdhaha yani waxa weeyaan talageliya. waxa uu islaamku karaameeyey sidoo kale haweentu markay xaas tahay, hooyuu karaameeyey, gabadhna waa karaameeyey, xaasna waa ku karaameeyey. oo seebuu ku karaameeyey nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh? haweenta saalixadda ee zawjada ah wuxuu ka dhigay diintaadiiba niskeed baa laga dhigay. xadiidka nabigu sal ly slam wuxuu hi man razaqahu llahu imra'atan saalixa faqad acaanahu calaa shatri diinihi falyattaqi illaha fi shatri thani. ruuxii ilaahay uu siiyo haweenay wanaagsan, ilaahay wuxuu ugu kaalmeeyey diintiisa niskeed, ee niska kale ilaahay ha uga boqo. hawfiis xaaskii waa diintaada niskeed, khaasatan markay tahay haweenay wanaagsan. sacaadada iyo liibaanta nabigu markuu sheegay sal ly slam wuxuu yihi liibaantu waa saddex: almar-a asaalixa, walmaskanu lwaasic, walmarkabu lhanii. haweenay wanaagsan, xaas wanaagsan, iyo guri waasacoon cidhiidhi kugu ahayn, iyo gaadiid hayin ahoo ku ogol. saddexdaasi waa liibaanta nolosha buu nabigu sal lay slam. waxaa u horeeya almar-atu asaalixa. islaamku dumarka markay xaas tahay wuu karaameeyey, ugama dhigin ragga addoon say doonaan ay ka yeelaan, bal wuxuu ka dhigay inay tahay ibni aadan xuquuqdiisa leh, waajibaadna saaran yihiin. ayada iyo ninka nidaam baa loo sameeyey, xuquuq ka dhaxaysa oo labadooda mid walba laga rabana waa jira, xuquuq ninka laga rabo xaasku ku leedahayna waa jira, xuquuq xaaska lagu leeyahay oo ninku ku leeyahayna waa jira. bini aadan karaamaysan baa laga dhigay. rabbigeen tabaaraka wa tacala wuxuu yihi walahunna mithlu alladii calayhina bilmacruuf walirijaali calayhina daraja. waxay leeyihiin xuquuqda lagu leeyahay iyaga ee raggu ku leeyihiin mid la miday ragga ku leeyihin. iyaguna xuquuqda mid la mid ah bay ragga ku leeyihiin, raggana hal darajay la dheer yihiin. walirijaali calayhina daraja. maxay tahay darajadaasi? darajadaasi waa qawaamadii, waa mas-uuliyadii guriga wa, sooma. taa iyada ah looma sinna, dee loomama sinaan karaba. ma dhici karto wax la yidhaahdo guriga haweentuna waa amiirad, adiguna amiir baa tahay, oo dee markaasi ma waxbaa soconaya? ya anta amiir wa ana amiir faman yasuuqu lximaar. yaa marka socon, yaa talinaya. taasi ma soconayso. ibni aadan wax ka dhexeeyaan walow laba ruuxna ha noqotee waa in uu jiro nidaam iyo kala dambeyn uu jiro. noloshu saasay ku socon karta. marka taasi waxaa keenaysa, xikmaddaa keenaysa. rabbigeen tabaaraka wa tacala suu tilmaamay. laakiin xuquuqdii inta ay raggu leeyihiin bay iyaguna leeyihin. xadiidkii nabiga sal ly slam fi xajati lwadaac markuu dardaarmayay ummadda la hadlayay, nabigu wuxu uhi sal ly slam alaa wa ina lakum calaa nisaa'ikum xaqa walinisaa'ikum calaykum xaqa.
dumarkiinu xaq bay idinku leeyihiin idinkuna xaq baad ku leedihin xuquuqda dumarkiina ilaaliya iyaguna xaqiina ha ilaaliya xuquuqdii baa sidaa loo sheegay nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam istawsuu binnisaa'i khayra war dumarka khayr u dardaarma dumarka khayr kula dhaqma wacaashiruuhunna bilmacruuf wanaajiya dhaqankaad la dhaqmaysaa laba arrimood buu nabigu sal alla alay wasalam yidhi iska jira laba arrimood aada uga taxadara oo daciifa labada daciif ee tabarta daran waa agoonka iyo haweenta labadaas xuquuqdooda iska jira buu nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu nabigu sal alla alay wasalam raggaba akhyaarnimadoodaba qiyaas uga dhigay miisaanka lagu garto ninku inuu akhyaariya waa inuu reerkiisa akhyaar u yahy khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlihi bu nabig sal lla alay slam ka idinku fiican waa ninka reerkiisa ugu fiican aniguna waxaan ahay midka reerkiisa ugu fiican ayaan ah anaa idinku fiican reeraha soo ma markii cumar uu nabigu yimi sal alla alay wasalam uu rasuul ilaahay ow nabigu wuxuu reebay dumarka ha garaacina buuli markaasaa guryihii waxoogaa waxaa ka dhacday dumarki inay ragga ku dhiiradaan cumar baa nabigu sal alla alay slam markaasuu yaa rasuul allah da-irna annisaau cala arijaal raggii dumarka waa ku dhiiradeen la garaacin bay maqleen hawshii qasantay markaasuu nabigu sal alla alay slam ayuu fasaxay markuu fasaxay baa nabiga guryihiisii waxaa yimid dumar fara badan oo dacwoonaya oo ka dacwoonaya raggoodii oo garaacay markaasuu nabigu wuxuu yuri sal alla alay wasalam dumarka ha garaacina ulaa-ika laysuu bikhiyaarikum buu nabigu sal lla alay wasalam raggaa dumarka u gacan qaaday akhyaartiini ma aha buu nabigu sal lla alay wasalam akhyaartiini ma aha marka waa ka dardaarmay waa ka hadlay isagaa la dhaqmi jiray nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka kullu dalika waxay kutusaysaa inuu islaamku hooyada karaameeyey oo gabadha karaameeyey oo xaaska karaameeyey oo xuquuq siiyey oo iltisaamaad siiyey oo waajibaad siiyey oo jid cad mariyey haddii aynan hooyo ahayn oy walaal tahay ayadana sidoo kale waa la karaameeyey haddaynan nin lahayn oy armalo tahay carmal tahay ayadana waa la karaameeyey oo nabigeenu heer wuxuu gaadhsiiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu yidhahdo assaaci cala alarmalati waalmiskiin kalmujaahidi fii sabiili illah ninka ka shaqaynaya miskiinka iyo haweenta aan ninka lahayn masaalixdooda ka shaqaynaya oo u taagan wuxuu la mid yahay sidii ruux ilaahay jidkiisa ku jihaaday oo kale kaasuu la ajriya marka haweenimo dayacna way sharfan tahay way karaamaysan tahay islaamku waa sharfay wuxuu ku sharfay wuxuu ilaaliyey akhlaaqdeeda wuxuu ilaaliyey diinteeda wuxuu ilaaliyey magaceeda sidaa markuu islaamku u sharfay ayaa walil asaf gabdhihii muslimaadka waxay garan waayeen karaameynta iyo sharafka islaamku uu siiyey markaasay sharaf waxay ka raadiyeen dhaqamo kale iyo mabaadi' kale walil asaf oo waxaad looga murgo waayo dad ku talagalay inay dumarka ka ganacsadaan kuna ganacsadaan ayaa dumarkii maskaxda ka xaday maskaxdaa lagaga soo duulay maskaxdaa laga xaday markaasaa waxaa lagu yidhi islaamku waa idin dulmay mid baa baraarujin mudan dumarka haddii la dulmay oo mujtamacaadka muslimkaee maanta jiraay qaar ka mida dhexdooda lagu dulmay ma islaamkaa dulmay oo eedda iska leh mise mujtamacaadkaa dulmo oo eedda iska leh ya mujtamacaadkaa khaladka iska leh khaladkaasina wuxuu ka yimid ka fogaanshaha diinta laga fogaaday soo saas ma haddii xuquuqdoodii la duusiyo oo la dulmiyey oo tabardarrada darteed loo dulmiyey ma aha wax islaamka ka yimid ee waa wax ka yimid islaamkii oo laga durkay eedda marka diintu ma leh islaamkuna ma leh allana ma leh tabaaraka wa tacaala ee laakiin waxaa iska leh mujtamacii ama ciddii waxaa samaysay gabadha muslimadda marka waa inay fahanto waa inaan loogu sheekaynin waa lagu dulmiyey oo waa lagu xaqiray oo waa lagu yeesay karaamo iyo sharaf oo dhan baa loo tusay inay xunta